Soomaalidu laakiin iyagu hadda waa ka sii badbadiyaan qaarkood maaragtay marka salaam saas markuu yiraahdo saasay haddana leeyihiin Soomaalidu markay salaamayeen waxay yiraahdeen fariisu la famale marka waa ku baaray inaad qadarkiita markay saas ku leeyihiin way iska ka baaray inaad qadarkiita laba mas'alaan ku darayna mas'alada koowaad waxay tahay khadir waa soo sheegnay man nabiyu ahaa mase weli ilaahay oo saalix u ahaa labadaba culimadu waa yiraahdaan waa isku khilaafeen laakiin qaraa'intu waxay tusaydaa inuu nabi ahaa qowlka kalena culumma qabta masalada koobaad aan ku daraynaa waxay tahay hadda ma nool yahay khadir mase waa dhintay masaladaas wey hadda ma nool yahay mase waa dhintay khadir waa masalo culummada waaweyna isku khilaafeen culumadii muslimiinta waaweyna waa isku khilaafsan qaar waxay leeyihiin waa nool ilaa iyo hadda waa nool waxay leeyihiin wuxuu ka cabay il oo la yiraahdo ayn al hayati isha nolosh dad cabto ma dhimanay ishaasu biya ka cabeeyay marka wali waa nool culimada ku tagtay waxa kamida imaam an-Nawawi rahimahullah sharh sahih muslim waxa kamida imaam al-Qurtubi tafsiirkiisa waxa kamida ibn Salah waxa kamida al-Imam an-Naqash aad ugu xeel dheeraaday ibn Adiya wuxuu yiri Qurtubiga laftiisa waa yiraahdaa Qurtubiga tafsiirku ku dhexleey aad ugu dheeraaday yiri Naqash ha waa nooliya waxa uu daliil ah wax tira badan uu sheeg wuxuu yiri ashyaa badan uu ka soo naqliyay Ali ibn Abi Talib iyo qeyrkiisa laakiin wa kulluha la taqumu ala saqin laakiin dhamaan wax uu sheegay wax lu ku taagan ma macna wax sugan ma wax sugan ma uu marka culimadaas mareen hikayat badan ay sheegay meel ay lagu arkay meel waa lagu maray ha ugu xoog badan wax loo dariishado inuu nool yahay waxa ugu xoog badan hadithu ta'siya afarka ta'siyada hadis ma ahane afarka ta'siyada xal loo jeeda afarka ta'siyada waxay leeyihiin markii nabigeena suuban sallallahu alayhi wasallam la oofsaday oo mara la saaray waxa la maqlay wax dhawaaqayo oo loo jeedin guriga dhinaciisu ka dhawaaqa wuxuu leeyahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم أهل البيت كل نفس ذائقة الموت إن في الله خلفا من كل هالك وعوضا من كل تالف وعزاء من كل مصيبة فبالله فثقوا وإياه فارجوا فإن المصاب من حرم الثواب ساسولي فدروا فكانوا وحي هايان ضدك يرونك وأماليا أما يرونك وأركو كأمنه أنه واحد واقع الخضر عليه السلام صحابتي مقشي ساسي أهيستي حين قدر أوي تفسير قرطبي يعني كاسا أوحي بضان أصابنا والضعيف ما السقنا أهل العلم قبلنا وحي مرين خاضر وعدنتي عليه السلام تبي من النولة حافظ ابن كثير أفر دليل أكام إنو سنولين هنا كنت أقول إرادة إنو سنولين أفر دليل أكام لكن وحا شرحي أفر الدليل العلامة محمد الأمين الشنقيطي كتاب كيس أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن وسيد أكب بلارن وشرح أفرتي دليل وأنا أفرت ابن كثير كنكو ويركو هرتا حديث كتعسيده أم أثر كتعسيده مصرنا وحافظ ابن كثير إيو غير كيسبه وحير هذين مصرنا والضعيف وإسناده ضعيف وليبا وحو أدعو ديرابا كتابك تاريخ البداية والنهاية وحو نيريد وليبا ضعيف جدا وحيالها
قول كلمات وعلماء يراهدين خضر تج وانا دنتي عليه السلام واتج وادنت الدلة تصيدا صد أفرع وحوق بضان دليل ككوبات وعمومك إلهي قولك آيات القرآن وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون مشركين تعربيض النبي كسور جيدي صلى الله عليه وسلم واحد ليه جيرين اسكا صبر محمد وعدمانا مركاسا إلهي يري بشر نبي محمد وكاهوكيا وما أنا يلين إنو وارو حداد لما تأيوم من نولانا ساسرنا ماشي بركة لقد لشانا واهلكي وما جعلنا لبشر بشر ونكير في سياق النفي طعم وح بشر والنبي محمد كوريي وارد على أميين إلهي أميين وارد عموم كاس وحا لغا صور غيبي حديث صحيحة ومتواترة نبي عيسى ونول يصمد وجهه وح كلو دليل الله يا ملك وحا واجب عموم كساس إن الله قاطوا آيات قرآن حتى نرحنا خضر ونول يهينا waxay noqonaydaa bashar nabi maxamed ka horeeyay oo waaray saasay noqon macnaheedu aayadu ka soo horjeeda daliilka labaad waa xadiiska sahih muslim nabigeena suuban sallallahu alayhi wasallam maalintii badr wuxuu fiiriyay gaalada tiradooda waa kun saxaabadiisii uu fiiriyay waa 310 iyo dhow wax aad u kala fog markaasuu inta qiblada u jeesto gacmaha kor u taagay uu ilaahay bari oo wuxuu yiri allahumma anjis li ma wa'adtani ilaahu ii oofi gargaarkii aad ii ballan qaaday allahumma in tuhlik hadhihi al-isabata min ahli al-islam ilaahay wahdaad halaagto kooxdan muslimiinta oo ahli islaamka ah la tu'badu fil ard dhulka korkiisa lagu caabudi ma لا تعبد لا دو النافية تعبد وفعل فعلكم مصدر يحد ويحدث كأه مصدر يزمن ككوبي مصدر كنا وعنكره فعل كمركا النفي وكهرية وحول الميديو كتني جايه النكره في سياق النفي عموم تصا وح إذا هذا لونك كوركي سلوكو السمايما ساسوية صحابة النبي اللي سعت يا نبي وحول ليه النبي إلهي وهداد هلاكته ما أنت لونك كوركي سديب لوجو عابد ما حدي خضر نورارها والجو عابد له إلا سجع عابد له هاي كوح راسنا اللي مسعون قارا لو واحد بيعكرتين اللو تشيدون ميلها تاجنا تاس واسكو وهمي هذا تاس دليل ملك waxa aan loo jeedin waa jinniga ee insi waa loo jeeda khadirna insi uu ahaa waxa aan loo jeedin meelaha joog kara waa jinniga walidaas daradeed xadiiska tacsida saasa lagu anfi ilaahay wayna wuxuu yiri innahu yaraakum huwa wa qabilu min haythu la taruna shaydaanka iyo qabiilkiisa jinniga waa in arkayaan umana jeedaan idin marka waxaan loo jeedin ayagu ku jeeda waa jin qadirna waa ins marka xadiiskaas muslimka wuxuu tusaa in aan qadir noolay daliilka saddexaad nabigeena suuban sallallahu alayhi wasallam geeridiisi wax yar ka hor intuusan dhiman ayuu hareen isha inta tujiyay xadiis imaam muslim saxiixiisa ku wariyay جابر وريي عبد الله بن عمر وريي ابي سعيد الخدري وريين ضمان صحابه سنبيga ka wariyeen geeridiisi bil ka horeeyay markaas wuxuu ku yiri ma min nafsin manfusatin tablughu 100 sana dhageystu aawa laga bilaabo aawa ka bilaabo nafla abuuray ma jirto oo 100 sano dhaafayda ma jirto 100 sano aawa ka tiri markay 100 sano dhamaato naf dhulka korkiisa ku nool waa dhimanay inta hadda nool waa tagay
صحابتي كي ودن بيي بقولكي انتو سنقمانو دنت سيدي النبي الشيخ ما بدعي كرت واحد نبي الشيخ انه سكلا النقط وحيلاقي علماء الحديث كتب حديث صحيح ومسلم يقين كيس اي وريين كما سوقات انه نولا مركز كون بقول كاسو كتغي خضر عليه السلام تجي تو نولا حط او وقتك سو غاري كما دغبا بقول كاس كتغي waxay yiraahdeen nabi ciise ba kuma tagin nabi ciise masaga dhulka jooga nabi wuxuu dhulka joogay nabi ciise kor u jira nabi ciise ma ku jira waxa dhulka jooga nabiguna wuxuu dhulka korkiisu daliilkaas ma daliilka saddexaad oo saxiix ah imaam muslim qeyrkiis bay wariyeen daliilka afraad oo ku soo qatimayna masaladaas khadir waqtigii nabi maxamed joogay sallallahu alayhi wasallam haduu joogi lahaa waxa waajib ku ahaaleed inuu nabiga u yimaado oo uu xumeeyo oo uu raaco oo uu u gargaaro maxaa yeelay ballana ilaahay ka qaaday anbiyada nabi kasta ballana ilaahay ka qaaday hadii nabi uu yimaado in uu u gargaarayo xumaynayo ilaa wuxuu yiri وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرونه بالله إلهي كقاب نبي كست إلهي أوسيي كتاب يسمو هدي أصدو جوغا نبي كليمادو إن أخرمي أقرقار بالله هدو النبي يواجب يكو أهل إنو حتى الرئيس كده دولي هنا ومن باب الأولى تنكالي نبينا الصوبان صلى الله عليه وسلم هنو شيغي وقتي أساقو جوغي هدي حتى نبي موسى جوغي لها نبي موسى حتى دو جوغي لها وحكا لأمة بنانات أساقا إنو رعمان وحكا لأمة بنانات توانا سيدة آياتو شيغي مركا خدير هدو جوغي وقتي نبينا عليه الصلاة والسلام واجب وحكوها إنو نبي محمد راعي هو يموه وراعوه هو يموه إذن لبدا قول كالراجحة ومسألة خلافية أن اسكو أكين لبدا قول كالراجحة وخضر إنو دنتي عليه السلام وعدنتي Soomaalidu laakiin iyagu hadda waa ka sii badbadiyaan qaarkood maaragtay markaa salaam saas markuu yiraahdo saasay haddana leeyihiin Soomaalidu ka salaamaya waxay yiraahdeen fariisu la famale marka waa ku baaray inaad qadarkiita markay saas ku leeyihiin way iska ka baaray inaad qadarkiita qaarkoodna waliba waa ku sii tagtageenoo wax aan ba munaasib u ahayn anbiyo iyo awliyo alla midna lagu tilmaamo ayay ku sifaynayaan wax u haystaan qof calal ku wasaq badan oo meelaha wareego uskag badan waxay ku leeyihiin iska ilaali dadkaas uskaga badan inuu qadar yahay dhacday taas waa qalad weyn subhanallah see nabi ama wali ilaahi oo saalixa inaad u malaydo wax daran oo nadaafad daran waa arrin qatar marka taas iska daaya